يوسف أصحابته soo gala aad u mahadsantihiin maanta xisada waxay ku saabsan tahay falanqaynta lacagta macnaha gold iyo ku saabsan tahay waxaan rabnaa in aan falanqeyno dahabka sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo waxyaabo badan oo ku saabsan dahabka iyo waxyaabo badanaa laga yaabo inaad ka warqabin ama aadan ogeyn marka soo dhowaada marka aada u mahadsantihiin qofkii macnaha fariin soo qoraalkaan ka arkaya fariin waa soo qori kartaa dabcan su-aalo ayaa idin weydiin doonaa oo maaragtay waxaa idin tijaabin doonaa in aad maanta dahabka wax ka fahamsantihiin iyo in kale marka sii diyaari qoraalkaaga sii diyaarso si macnaha haddii laga yaabo inaad su-aasha jawaabteeda aa haysid aa igu soo qorto meesha aniga u ogaado inaa maaragtay wax ka taqaanid ama wax inay fahamsantahay in kale si aa u garto marka taasaan idin leeyahay marka u galno lacagtii waxaa u galaynaa dahabka ayaa u galaynaa allright marka allright allright marka waxaa u galaynaa lacagtiina dahabka ayaa u galaynaa marka sida marka ugu horeyso dahabka waxaa waaye waxaa jiro baasha jaadka iska qaado marka allright tan meeshaana iska dhigo marka okay marka waxa ugu horeeya waxaa waaye horta waxaa jirto su-aal muhiim ayaa jirto aan raba inaan idin weydiiyo idinka dhan taasi oo yacni ku saabsan taasoo ku saabsan dahabka macnaha hadda wuxuu marayaa sax qiimo go-an ayuu marayaa qiimo cayiman ayuu marayaa sax xilligan aan ku hadlayo dahabka wuxuu marayaa qiimo cayiman marka jaartiga sida u jeedid dhankan oo yacni hal mar waxaa idinkugu calaamadeynayaa si aad u aragtaan hadda u jeedaan soo maha hadda sida u jeedaan halkan qiimo ayaa nugu qoran qiimahana waxaa waaye 1952 waxaa macnaha ujeedaa tiro ayaa ujeedaa marka su-aashu waxay tahay tiradaas halkay ka imaaday maxays ka dhigan tahay XAUSD ku jirnaa halkan sida tiro ayaa nugu qoran qiimaha halkan oo maraya ayaa ugu jeednaa oo ah 1951 yacni lacagaha caadiga waxaa naqaanaa sida JBBUSD oo kale marka aan galno JBUSD haddaan galno hadda qiimaha maraysa waxaa waaye 1.30 balaa tiraa ka dambeyso this means waxaa waaye halkii macnaha pound wuxuu noo la mid yahay intaasoo dollar ayuu noo 1.30 gold laakiin waxaa waaye asiga uu ka duwan yahay oo yacni wuxuu marayaa qiimihiisa hadda 1952 dollar ayuu marayaa dhibic waxaa raacsan marka ma jiraa qof sheegi kara sababta ay kusoo baxda tiradaas iyo ma aragtay waxa laga wado
ama waxa uu u dhigan yahay. Marka golding wuxuu leeyahay wax macnaha lagu cabiro ayuu leeyahay. Marka ma jiraa qof garanaya. Marka inaad ka jawaabi kartaan in kale ayaan eegayaa. Marka marka soo qora insha allah, soo qora jawaabta haddii ay haysaan. Horta codkeyga ma la maqlaa? codkeyga marka hore haddaad maqashaan ii soo qora fadlan. Okay, codka waxaa la dhahay lama maqlo. Sug waaye. Okay, codka aniga hadda xali doono insha allah. Okay. qofka dhahayo maku maqli macnaha siga ayaa laga yaabaa inuu codka xiran yahay. Marka qofka dhahayo maku maqlin asiga ayuu malaha codka xiran yahay. All right, marka haddaa ay maqashaan waa okay, waa wanaagsan tahay. hore usii soconaa. Marka yaan la qasin dadka dhahayo maku maqalna camal. waxaa leeyahay macnaha foodada joojiya. marka sidaas ayaa dhihi lahaa. Caaisho waxay leedahay codka weli ma maqli. cilada adiga ku haystaa. Marka dad kale caadi u maqlaan codkeena. marka adigu waa cilada adiga iska xali. codkana furo insha allah. malaha codka ayaa kaa xiranay. marka taas ugu baxna. marka hadda casharkeena haddaan sii wadano, qiimaha gool waxaa u jeednaa tiro ayaa halkaa nugu qoran, taasoo ah 1952 waxaa u jeednaa. marka 1952 dolar ay u dhigantaa haldhaa gool. marka 1952 dolar ma halkii gold ma macnaha ma sidee noqonaysaa? ma hal one gold ma intaas la mid ah camal, mise waxaa jira wax kale oo base u ah? marka taas ayaa rabaa marka hore inaan idin fahansiiyo. marka taas intaan u gelin waxaa waaye markay sidaas ay tahoo kale goldhiga waxaa lagu cabiraa. hadda marka aragtid tiradan oo kale oo meeshaan kaaga muuqato waxay u taagan tahay wax la dhahayo 1 troy ounce of gold. 1 troy ounce of gold ayaa la dhahaa. marka waa idin qorayaa si aad u aragtaan. waa idinku qorayaa shaashadda beyntiga. alright, marka beyntiga ayaa idinku qori doonaa si aad u fahantaan yani. marka taas waxay la mid tahay markaan ku dhahayo 1 troy ounce waxaa ka wadaa sidaan ay u qoran tahay 1 troy ounce. 1 troy ounce is equal wuxuu la mid yahay 1952 dolar dhibic waxaa raacsan sintiyaala raacsan sax hadda qiimaha caadiga. marka waxaa laga wadaa marka su-aashaas kale haddii lagu weydiiyo waxaa leedahay qiimahan sidoo kusoo baxa haddii lagu dhaho oo hadda goldhiga maraya waxaa leedahay waxay la mid tahay yani 1 troy ounce of gold. meeshaan waxaa ka maqan of gold. 1 troy ounce of gold ayaa wuxuu la mid yahay qiimahan ayuu la mid yahay. marka waa sii jilcinaynaa 1 troy ounce marka waxaa laga wadaa marka horta ounce muxuu yahay? ounce waxaa waaye waa culayska. waa macnaha waxaa lagu cabiraa waa wax ka mid ah maaska, qayb ka mid ah culayska ayaa lagu cabiraa. ma fahante? maadaama waxaan bir ayin dahabka uu bir oo yahay culayskiisa ayaa la cabiraa. hadba sida u kala culus yahay ayuu u kala lacag badan yahay goldhiga. marka halkii ounce wuxuu la mid yahay 1 ounce wuxuu la mid yahay waxaa fahmi kartaan idinka sida caadiga 1 ounce wuxuu la mid yahay 20 grams ayuu la mid yahay 20 garam oo dahab oo la mid yahay. ma fahante? 20 grams ayuu la mid yahay 20 garam ayuu la mid yahay. sax waa ifahanteen u malaynaya. war ma ifahanteen? bal soo qora inaa ifahanteen.
gabadhay haa okay marka dadka qaara waxay leeyihiin codka furo war codka adiga ayuu kaa ciladaysan yahay dabcan marka adiga codka iska sax inaa fahanteen umaleeyaha marka 1 ounce wuxuu lamid yahay 20 garaan ayuu lamid yahay 20 garaan oo dahab ah garaam waa taqaanaa waa dadka macnaha waa culayska lagu cabira yacni 20 garaana jiro waxaa jirto tuminaa jiro rubacaa jiro kiilaa jirto dadka hilibkan gaday iyo waxaas waa isticmaalaan ma fahanti marka 1 ounce wuxuu kula mid yahay 20 garaan marka waxaa ii soo haray 1 try ounce meeqa ayaa lamid tahay meeqa garaan ayaa lamid tahay 1 try ounce imise garaan ayaa lamid tahay marka waa ayadana waa su-aal kale ma fahanti marka 1 try ounce waxay lamid tahay sida caadiga ah waxay lamid tahay 31 garaan ayaa lamid tahay meel ku qora inaad isku day inaad meel ku qortaan ama maarag screenshot aad qaadataan 1 try ounce wuxuu lamid yahay 31 garaan ayuu lamid yahay waxaa raaca weliba guulaha ayaa kaa tusayaa si aad si fiican usii aragtaan marka waxaa leedahay 1 try ounce waxaa leedahay garaam ayaa leedahay waxa kusoo baxaya inta garaan oo markaas ugu dhigmo sidaa u jeedid meeshaan google markaa gelina waxaa noo soo baxay 31 garaan ayuu lamid yahay sax sida hadda idin sheegaya 31 garaan waa marka waxaa rabnaa inaan ku qiimeyno lacagta doolarka sida caadiga dahabka marka halkii garaan oo dahaba meeqa u dhigmaa halkii garaan oo dahaba meeqa u dhigmaa googlaha ayaa gelinaya anagoo isdhibin waxaan leenahay 1 gram to USD marka halkii garaan 1 gram of gold ayaa leeyahay sax 1 gram of gold to USD ayaa leeyahay marka halkii garaam hadda sida caadiga dahabka wuxuu maraa $62 ayuu maraya sax war intaas ma ila fahanteen sida caadiga dahabkan hadda macnaha oo maaragtay meesha dahablaha kale lagu gado halkii garaam waxaa laga gadaya $62 ayaa lagu xisaabinaya 10 garaan hadaa rabto 62 ayaa lagu dhufanaya ma fahanteen marka 1 try marka waxaa dhahnay 1 try ounce of gold waxay lamid tahay $1952 marka $1952 ayaa rabnaa inaan soo saarno sidee usoo saareynaa waxaa usoo saareynaa 1 try-ounce horta meeqa lamid tahay waa 31 garaan 31 garaan oo dahab lamid tahay sax marka waxaan leenahay calculatorkaa soo qaadanaysaa 31 garaan oo dahab meeqa ku fadhiyaa sida caadiga hadda marka 31 waxaa ku dhufanaysaa halkii garaan dahab meeqa ku fadhiyaa $62 sax equal waxay kuu soo baxa markaas fiiri maxaa kuu soo baxa walaal meesha calculatorka maxaa ka aragtaa ama adigaba isku dhufso maxaa kuu soo baxa 1922 intaas ayaa kuu soo baxda sax waana hadda qiimaha meesha uu marayo dahabka waay ma fahanta hadda macnaha waxbaa ku darsamay ama waxbaa ku kordhay war intaas in ciddii fahantay almaraa iisoo qoraan ma fahante marka sidaas ayay kusoo baxday marka waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysteen uma aragta hadda gold aan weydiin doonin qiimaha hadda uu marayo sida uu kusoo baxay waxaa leedahay qiimaha waxa kusoo baxay 1 try-ounce of gold ayaa waxay u dhigantaa ama waxay goysaa 1952 su-aala imaanaysa meesha 1 try-ounce meeqa garaan ayaa lamid tahay waxaa leedahay 30 garaan oo dahab ay lamid tahay 31 garaan oo dahab marka meeqa ay sida caadiga meeqa dollar waa hadda sida caadiga ay kugu fadhiso waa halkii garaan $62 kugu fadhiyaa 31 garaan waxaa ku dhufanaysaa $62 waxaa kuu soo baxaya qiimaha saxda oo hadda maraya anaga hadda macnaha qiimaha gold wuxuu maroyaa hadda $1952 ayuu maroyaa macnaha waxaa waaye waxbaa ku kordhay qiimaha mar walba meesha taagnaanaya googlaha wuxuuna siiyey hadda macnaha qiimihii ugu dambeeyey ayuu siiyey ugu macquulsanaa laakiin waxaa laga yaaba hadda inuu yahay 63 meelahaas 64 ma fahante marka intaas inaad fahanteen ayaa rajeynaya marka gold sidaas ayuu kusoo baxay
maaragtay sidaas ay u taageen. Marka waxaa u galaynaa taxliilinta ayaa u galaynaa. Marka haddaa intaas fahanteen goldhiga marka haddaa u fiirisid macnaha haddaa fiirisid waxaa u jeedaa qiimaha meesha ugu sareysa inuu tagay. waxaana arrintaas sabab u ah lacagta lacagta doolarka ayaa macnaha qiimo dhacday ama qiimo maaragtay beeshay. macnaha dahabkii ayaa qaali noqda, ma fahantay? hadduu dahabka qaali noqdana doolarka waa ogtahay. marka sida u jeedid waxaa ku sameynaynaa zoom aa ku sameynaa si aan u ogaano qiimaha meesha u taagan yahay. ma aamini kartid hadda qiimahan maanta meesha uu taagan yahay. haddii aan ku dhaho waxa ugu dambeysay inuu qiimaha dahabka halkan uu gaaro 2010 10 sano ayaa ugu dambeysay. waxaan rabaa arrintaas inaan ku tuso ayaan rabaa. marka waxaa iskaga sameynaynaa zoom out aa iskaga sameynaynaa. zoom out ayaa ku sameynaynaa. marka zoom out markaa ku sameyno waxaa arkaysaa dahabka hadda in yacni uu taagan yahay meeshii meel dhowr sano hadda kor ugu dambeysay. halka haddaa eegtid qiimaha wuxuu taagan yahay wuxuu ku beegan yahay supportigan ayuu taagan yahay, sax? aan dhahay resistance aan dhahay, sorry, resistance ayaa ka wadaa. wuxuu ku beegan yahay resistance marka haddaa fiirisid haddaa ku fiirisid baasha lagu fiiriyo timeka waxaa waaye 2011 ayaa ugu dambeysay, ma fahantay? bishii August ayaa ugu dambeysay inuu halkan qiimaha u gaaro. marka imagine dhowr 10 sano ay kasoo wareegtay inuu qiimaha halkan gaaro. marka lamana ogo wax dhici doona. maxaa yeelay waxaa ugu dambeysay 10 sano in uu qiimaha halkan gaaro. xataa xilligii hadda macnaha 3 bil 4 bil ee coronavirus uu jiray halkan muusan gaarin. marka I don't know maaragtay sababta halkan uu gaaray, laakiinse waxaa jiro culaysyo dhaqaale iyo adduunka waa aragtay coronavirus waxyaaba badanaa jira. marka wuxuu gaaray meesha ugu sarreysay ebed uu gaaray tan iyo muddo laga joogo 10 sano ah, ma fahantay? haddii aagtina qiimaha current price xilliga oo marayana halkan ayuu maraya. marka sida ujeedid xataa macnaha zoonkan wuu jebiyey xoogaa. I don't know maaragtay inuu kusoo laaban doono oo maaragtay isku xiri doono zoonkan. marka adiga fursad oo maaragtay buyna way sii socon kartaa oo qiimaha marka halkan haddii uu gaaray 10 sano ugu dambeysay waxaa macquul ah in uu qiimahaas ka sii socdo, ama waxaa macquul ah sidoo kale in qiimaha seel fiican oo imaado. marka dahabka wuxuu ka mid yahay lacagaha ugu maaragtay dhaqaaqa badan ama high volatility-ga ah. waa lacagaha maaragtay adduunka ugu dhaqaaqa badan ayuu ka mid yahay forex-ka. marka haddii halkii kandhal ayaa wuxuu noqonayaa intaasoo bib ama 100 bib ka badan ayuu noqonayaa, ma fahantay? tusaale ahaan iskandhal waxaa cabiraynaa kandhalka weekly aa joognaa. waxay lamid tahay halkii kandhal inuu hal week oo socday. marka week kandhalkan socda meeqa bib ayuu maaragtay ku dhaqaaqay oo socday? waa 5,000 maya waa 528 bib. waa amazing. marka gold waxaa ujeedaa inuusan lacaga kale xoogaa lamid ahayn maaragtay oo ka dhaqaaq badan yahay. that's why marka lagu leeyahay lacagaha kale intaa ku geli jirta lot size-ka halfkeeda ku gal. marka dahabka run ahaantii fursad seel waa la dhihi karaa way ka banaan tahay. fursad seel oo weyn haddii ay imaado fursad seel waxaa ma aragtay la filayaa bismillah ay kaantigas wallahi qiyaasi karo adiga aad iyo aad waa adiga dhowr kun oo bibaa laga yaabaa inuu maaragtay oo hoos usoo daato, ma fahantay? laakiin the worst thing uu leeyahay waxaa waa goldiga adigoo isdhahaya seel u gal ayuu lacagtii waxay samayn kartaa in ay gaarto qiimo aanan maaragtay 20 sano xataa ee maaragtay ugu dambeysay inuu tago ama meel aan la gaarin ayaa laga yaabaa inaad iska tagto, ma fahantay?
that's why marka u fiican tahay in aad taxadartid haddii aad gelaysana aad ku gasho taxadar adigoo marka hore ka fikiraya in aad ilaashato inta yar account kugu jirtay adigoo ka fikiraya ayaa ma aragtay loo baahan yahay ma fahamtay marka Goldie waxa waaye wuxuu taagan yahay sida u jeedaan ama sida shaashada ka arki kartaan resistance aad iyo aad u adag oo ma aragtay qiimaha ugu dambeysay 10 sano waa cimri aad u dheer marka meeshaas ayuu hadda taagan yahay waxaa la filayaa seel xoog leh ayaa la filayaa marka aniga waxaa aaminsanahay dadka aaminsan in uu seel imaan doono oo beri hadda macnaha waxaa soo bixi doono NFB news ayaa soo bixi doonto oo ah lacagta warka ugu weyn forex ee bil kasta soo baxa marka NFB newska wuxuu soo baxaa bil walba dhammaadkeeda jimcaha tusaale ahaan bishaana dhammaatay jimcaheeda ayuu soo baxaya ma fahamtay maalin jimcaha markii la gaaro ayuu soo baxaya marka isbuuc ugu dambeeya bil kasta jimcaha ayuu soo baxay ma fahamtay marka xilliga uu soo baxana waxaa u maleeyaa inay tahay adiga 9 saac bar miya mise 10 saac bar wax saas camal ah bal idinkaaga roonay ka warhaaya marka insha allah idinkaa ka warhaaya idinkaa soo qori doona insha allah xilliga uu soo baxo NFB news aniga markaa badanaa kuma tareed garay NFB newska oo maxaa yeelay badanaa newskaba ma fiirsho ani macnaha waxaa iga badan technical analysis ayaa iga badan technical analysis haddii aad aaminsan tahay inaad ku saxan tahay it doesn't matter ba marta news walba oo soo baxa adiga stop loss ayaa leedahay sax marka haddii stop loss aad leedahay waxaad ogtahay wax ka badan ma khasaaraysid right marka waxaan rajeynayaa inaad aad fahanteen all right marka lacagtan XAUSD fursad waxaa ka jirto sell ah ayaa ka jirto haddii aad gelaysid waad geli kartaa marka laakiin iska sug waxaa aragtaa qiimahan meesha uu ku dhammaado kan dhalkan meesha uu ku xirmo arag marka haddii kan dhal kale oo sell oo bilaawdo oo tusaale ahaan weliba uu kaa siiyo higher time frameka aad ka aragtid in kan dhal sell oo bilaabanayo ismiina suuqan gelis ayuu leeyahay hadda sida daily time frameka sida u jeedid waxaa aragtaa inuu bilaawdo kan dhal sell ah marka waa maaragtay high probability trade waa trade ay u badan tahay in uu ma aragtay oo yimaado qiimaha ma fahanta marka waxaa fireynaa haddana 4 hourka ayaa eegayna 4 hourka wuxuu inoo sheegayaa xoogaa yaroo fursad seel ayuu tusinayaa sida shaashadda aad ka aragtid qiimahana resistance ayaa laga soo celiyey oo markaa laakiin we don't know maaragta wax dhici doona waxaa laga yaabaa qiimaha intaan si isticmaalo marka qiimaha intaan waxaa laga yaabaa in ay taabo intaan yarta aad aragtid waxaa laga yaabaa in ay taa meel oo qiimaha ku noqnoqo rabo oo macnaha qiimahan halkaan imaado areadan kadibna oo kor aado oo meeshan haddana ixtiraamo oo meeshan consolidation uu ku sameeyo cabaar kadibna markuu ku laabto wuxuu sameyn karaa qiimaha markii uu hoos soo aadayo wuxuu sameynayaa wuxuu soo jebinayaa soo jebinayaa supportigan kadibna wuxuu aadayaa wuxuu iska dhigayaa retracement yar ayuu sameynaya ama laabasho yar waa sida ay lacagaha u dhaqaaqaan waa dabeecad ay leeyihin lacagaha kadibna marka haddii uu soo daadanayo dahabka wuxuu sameynaya in uu aad u soo daato oo meelahan camal imaado sida movekan aad ka aragtid meeshaan oo kale aad ka aragtid movekan dhaqaaqan xoogga leh aad ka aragtid marka sida aan kuu sheegayana waxay ka dhacday dhankan ayay ka dhacday oo qiimaha sida u jeeda halkan consolidation ayaa ka jiray kadibna waxaa dhacay move xoog leh ayaa dhacay oo ah kaasoo ah in uu qiimaha hal mar si xooggan oo kor u aaday
right. All right. marka waxaan rajeynaya inaad fahanteen meeshaas oo dahabka ma aragtay stiil fursad way ka jirtaa si haddii loo fiirshana taxadarkeeda ay u baahan tahay ma fahanti laakiinse aniga hadda suuqan gelayo dahabka insha allah beren waa geli doonaa waana idinla wadaagi doonaa waxaan u geli doonaa seel insha allah horta seel ayaa ka jirta sida aaminsanahay boqolkiiba 85% 85 boqolkiiba waxaa isleeyahay fursad seel ayaa ka imaan karta suuqa marka waxaa kaloo sameynaynaa waxaa fireynaa lower time frameka marka waxaa iska saarayaa zones support resistance ayaa iska saaraya waxaa ku fiirinaya channelka ayaa ku fiirinaya markaan channelka sida uu yahay ayaan markaa aan ku fiirinaya insha allah. All right. waxaa gelinaya markaa channel ayaa ku fiirinaya maxaa yeelay channelka aad ayuu u fiican yahay tareedyada markaa ka qaadaysid aad ayuu u fiican yahay waxaa ogaanaysaa meesha qiimaha uu ku dhacay iyo wax la filan karo. alright markaa channelka aan ku fiirino waxaa ujeedaa waxaad aragtaa zoom a ku sameeya horta waxaad arki kartaan in channelka uu na siinayo 4 hourka oo naga siinayo oo macnaha na tusinayo in qiimaalkan uu ku dhacay kadibna uu isku xira candleka halkan uu ixtiraamay kadibna uu laabasho u sameynayo marka haddii ugu badato oo qiimahan oo gold oo buy sii aadaya adiga wuxuu sii aadayaa ilaa cabirno inta bib oo maaragtay buy sii aadi karo waa lacala hadday dhacdo inuu buy sii aado adiga 400 bib amazing marka 400 bib aad u badan tahay ma fahanti marka channelkana 4 hourka wuxuu ina siinaya in uu ixtiraamay channelka oo qiimahana ay u badan tahay inuu laabto ama uu sii wato sarakaca uu ku socdo guys mar horena waa idin sheegay yacni haddii aragtid higher time frameka haddaa ku aragtid candle si xoogan u booda sida movekan oo xoogga leh oo kale movekan hadda ay u jeedaan oo kale candlekan xoog ay u booda sax haddii aragtid candle macnaha sidaas u dhaqaaqay it means waxaa macquul ah candles badan oo maaragtay sidaan oo kale in uu movekan uu sii socdo oo maaragtay la jabiyo meeshii resistancegii maaragtay ee ugu dambeysay 10 sano ka hor in la jabiyo ayaa macquul ah ma fahanti in la jabiyo ayay u badan tahay right marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen goldiga marka haddii gelis ay noqoto fursad seel ayaa ka jiro marka waxaana macquul in qiimaha sii socdo haddii aragtid candle sidaan isku raacay waxaa macquul inuu qiimaha buy sii aado marka anigu ku dhahayo ilaa hadda macnaha seel u gal hase aatee waxaa laga rabaa haddaa gelaysa lacagtan in adigoo taxadara aad geshid aana ka qaadatin inta bib aana u dul qaadatin yani waxaa laga rabaa stop loss hadday kaa dhacdo inaadan la yaabin inaadan ka shalayn marka hore ka fiirso marka hore ka taxadar stop loss aa xamili karto ama ogoshahay ama waxba saameyn a kuu yeelinayn marka hore u sameyso oo adiga 100 bib ama 50 bib oo kale ah stop loss dadhaadi gold ka waran 30 bib u sameysaa ka waran yaa taas macquul ma tahay isku marka ayuu qiimaha kaga soo dhacaya xataa minute 5 minutes gudaheeda kaga soo dhacaya mafahant marka waxaa laga rabaa stop losska ugu yaraan 100 ilaa 150 bib inaad ka dhigatid targetkana aad ka dhigatid 300 ama ilaa 350 bib camal marka adiga hala yaabin ha isdhihin 350 waa way adag tahay in la gaaro qiimaha waa wareey intaasoo bib ma sugi karaa dhihin adiga gold waaye hore ay ku gaaraya kuma qaadayso xataa hours kuma qaadayso waa aragteen gold sida u dhaqaaqayo sida u boodbood badan yahay waa aragteen marka
gold marka wuxuu ka mid yahay lacagaha ugu dhaqaaqa badan uguna fiican ee laga trade gareeyo, waana lacagaha sidoo kale waa lacag u riski badan waa. Marka aniga buugga aan qoraayay aan taariikhda ugu dhacda ka qoraayay inaan 2 isbuuc gudaheed aan $150 ugu bedelay $1000 waxaa u sabab u ahay dahabka ay ka trade gareey jiray. dahabkan ayaan geli jiray markaa waxaa ku geli jiray riski la'aan ayaa geli jiray. taas marka waxay ii saamaxday in aan lacag waali ah aan sameeyo oo ma aragtay lacagtii ma aragtay durbadiiba aan laba jibaaro. gold wuxuu ka mid yahay haddii aan nasiib leedahay lacagaha aad kaga taajiri karto. sidoo kale haddii nasiibkaaga oo xumaadana waa meel lacagtaada aad ku qamaari karto, waa ma fahamtay. marka haddii aa ogashahay adiga aa xamili karto aad ugu tala gashay ninkii ugu talagalay ee dhaa maaragtay ama gool aan waxa kala kulmo ama waa ka taajiraa ama waa ka qadaa oo go-aankaas qaato, waxaa waaye waa qof macnaha qofkaas lama qaban karo, qof committed waa, ma fahamtay. mana ka shallaayi doono maxaa yeelay marka hore ku talagalaa ama aniga lacagtaan intaana ku weynaa ama maanta waxaa rabaa intaasoo $1000 inaan sameeyo. dad saas sameeya way jiraan oo ma aragtay kuna guulaystay, kuwana kuwa khasaaro way jiraan. laakiinse dadka waxaa la hadlayaa mustaqbal kale forex lama rabo inay sidaas ay sameeyaan. adiga waxaa laga yaabaa inaad lacagta dhib ah ku keentay ama laga yaaba inaad deen ku soo qaaday ama lacagta waxaa laga yaabaa lagu dhiibay ama lacag ay ahayd jaamacadoo kale lagu dhiibay adiga lagu aaminay ayaa laga yaabaa. ama waxaa laga yaabaa mushaarkaaga aad qaadanayso bishaan oo dhibka ama aragtaa ka marayda xafiis aad joogta aad fadhiidoo kale ama dukaan aad ka shaqaynaydoo kale lacagtii ku soo gashay haddaad dhahdo riski 100% aa qaadaa, taas waa dabaalnimo waa, waxaas ma fiican adiga. marka lacag aa ogashahay aa ka sabri karta ayaa maaragtay aa lagu sameeya haddii aad u baahantay in aa riskiga noocaas aa qaadato. marka ani ahaan dadka mustaqbalka leh forex aa rabto muddo dheer inaa kasii shaqaystay sidaa aan kula taliyaan, ma fahamtay. marka run ahaantii dad badan way jiraan oo sidaa ku faa'iiday, kuwo badanna ku khasaaro waa arkay. dhalinyaro badan oo hadda yar waxaa xasuustaa oo hal maalin inuu galay akawnkiis waxaa ugu jira 1000 iyo xoogaa camal ugu jiray. yarkaas isku xaafadaan nahay, wuxuu sameeyey gool ayuu galay isla hal maalin gudaheeda wuxuu ku sameeyey $15000. amazing qiyaas marka waa gool macnaha haddii aad riski u bararto waa, ma fahamtay. marka haddii laakiin mustaqbal aad ka leedahay never trade garan siiba hadday kugu jirto akawnkaaga lacag ka hooseeda $1000 kugu habboon inaad ku trade garaysid. xataa $1000 ba hadday ka yartahay gool isku gelin waa haddii aad mustaqbal ka leedahay. haddii aad tahan risk taker maaragtay go ahdaa ku dhihi lahaa hore usii socod nin go-aan qaataa taa, ma fahamtay. alright marka taas halkaas ugu baxno. gooldiga waxa waaye sida idin sheegay fursado noocaas ayaa ka jira alright. marka waxaa marka fiirinaya markaas xisada waxaa jeclaa inaa halkan aa kusoo afjaro. qofkii su-aal qabo marka waxaa idin siinaya 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo camal. marka qofkii su-aal qabo ha ii soo qor inta imaqlaysa. inta aan hadeeta imaqlayna ma aragtay waxaa leeyahay ka xumahay ayaa leeyahay si cashar muhiim ah idin dhaafay. codkana cilada dhankiina waa dadka hadda liveka zoom ku jira aad iyo aad ay maqlaan. marka su-aalihiin soo qora qofkii maaragtay su-aal qabo insha allah. wuxuu dhahay khaalid wuxuu dhahay asalaam calaykum saaxiib, maxaa dahabka igu falanqeynaya support iyo resistance. hawlaha support iyo resistance ayaa isticmaalaa, weli waxaa isticmaalaa support iyo resistance zone ayaa isticmaalaa. wuxuu dhahay amiir aadan wuxuu dhahay assalaamu calaykum, hadaayo ayaan soo galay. alright marka haddii aad soo gasho marka maxaa jira marka ka gudubno. marka qofka hadda su-aal qaba ha soo qora insha allahu tacaala, su-aashiis waa laga jawaabi doonaa. maaragtay xishoonin adiga su-aashaada waa laga jawaabi doonaa.
wuxuu dhahay cabdirasaaq wuxuu dhahay NFP suuqa miyuu bedelayaa haddii aad technical analysis aad samaysay? It doesn't ma aragta adi saameyn kuuma yeelaa walaal. Waa arrintan mar dhowr jeer aan kala hadlay. Adiga stop loss haddii tradekaaga uu ku leeyahay wixii ma aragtay intii ma aragtay kuu qorneed ama inta u tala gashay ka badan khasaari mayso, ma fahanta? NFP news sababta looga digayo ee dadka la leeyahay ugu degdegnina waxaa waaye dadka aan stop losska isticmaalin ee lodka weyn isticmaala ayaa la dhahaa ku degdegnina, ma fahanta? laakiinse haddii stop loss aa leedahay don't worry adiga whatever $500 haddaa halis gelisay aa u tala gashay inaa risk aa ku gashay stop losska ay tahay $500 ka badan ma khasaaraysid. haddii aa u tala gasho $100 inaa risk gelisid $100 ka badan ma khasaaraysid, ma fahanta? haddii aa u tala gashay $10 inaa risk gelisid $10 ka badan ma khasaaraysid, ma fahanta? marka taas halkaas ugu baxno. waxay dhahday Amiira Aadan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal ah market strategy-ka sideen ugu samayn karaa trade line-ka ma waxaa ka wadaa macnaha support iyo resistance mayaa ka wadaa? marka market strategy-ka waxaa waaye qaab dhismeedka suuq waa inaa fahantid waaye sax horta weli waxaa kasii muhiimsan inaa fahamtid price action waxaa waaye inaa fahantid luqadda suuqa taasoo ah kan dhal walba wax ayuu ka tarjumaya. tusaale ahaan kan dhalada yararka ama noocyada kan dhalkan kan dhal walba inuu wax dooji kan dhal ma aragtay kuwa macnaha reversalka sheegayo kuwaas macnaha waxaa la dhahaa price action ayaa la dhahaa. bataanna waxaa waa naqshad dhan waaye ama structure-na waa la dhahaa market structure-na waa la dhahaa. waxaa waaye in aad aragtid inaad sawiratid suuqa macnaha sidoo u dhaqaaqa. tusaale ahaan hal mar jaartigan waxaa ku sameynaya zoom out ayaan ku sameynaya si aa u aragtid. markaa rabtid inaad market structure-ka macnaha aa fahantid ama aa rabtid inaad ogaatid waxaa u baahan tahay zoom out ayaa jaarti lagu sameeyaa. all right marka had zoom out ku sameeyey markaa maxaa ujeedaa laga soo bilaabo 2011 maxaa ujeedaa structure ayaa arkaa moo qaab dhismeed ayaa arkaa whatever ma aragtay hadda halkan sida ujeedid wuxuu sameeyey shape ayuu sameeyey shape oo ah v camal ah waa market structure qaab dhismeed ayuu sameeyey sax. haddii aad kasoo bilaawdid 2011 meeshuu maraya hadda sida ujeedid marketkan wuxuu sameeyey u weyn ayuu sameeyey sax. structure waa qaab dhismeed waa wuxuu ii sheegay in laga soo bilaabo 2011 ilaa hadda uu sameeyey wax la dhahayo double topna waa la dhihi karaa ama u qaab uu sameeyey ama v waxaa rabtid waa dhihi kartaa, ma fahanta? sida ujeedid qiimaha wuxuu sameeyey u ayuu sameeyey. marka line-kan haddii uu qiimaha gaaro waxay u badan tahay in uu soo laabto markaa fursado sell ayay badanaa ayaa ka heli kartaa, ma fahanta? structure-ka marka waa sidaas waa ama bataanka ama naqshadda naqshad ma dhihi kartid macnaha halkan dhal naqshad ma ku tilmaami kartid. ugu yaraan waa in dhowrkan dhal ay yihiin kadibna ay muujiyaan nooc sawir ay ku siiyaan. sawirkaas nuucan doona ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa sidan ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa uptrend ayuu noqon karaa, ma fahanta? down trend ayuu noqon karaa. adiga ma aragtay waxyaabo kale waxaa laga yaabaa xataa macnaha in adiga qaab kale ay kugu muuqato oo v ama u ama xaraf ama wax un naqshad ay kugu muuqato waxay kugu muuqataa janal. tusaale ahaan halkaan oo kale hadaa fiirisid janal waa soo maha marka adiga kugu xiran tahay naqshado badan ayaa ka helaysaa, ma fahanta? markaa taa ku tarad garaynaysa adiga ayaa taqaana. marka su-aashaada halkaas ayaa ugu baxay. all right marka yaa kaloo su-aal qabo insha allah tacaala. qof kale oo su-aal qabo haddii uu jiro fadlan ha inala wadaago insha allahu tacaala. okay marka halkaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa waa mahadsantihiin zoomka halkaan ayuu ku egyahay.